Waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee channelka Gunta Wararka. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo ciidamo weerar ku qaaday xarunta shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Farmaajo oo culays kala kulmaya siyaasiyiinta beesha Mudulood iyo magacaabista duqa Muqdisho oo dib u dhacday. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo war culus ka soo saartay doorashada guddoonka baarlamaanka Jubbaland. Beelaha Habargidir oo ku kala qaybsamay shirka Dhuusamareeb iyo ra'iisul wasaaraha oo lacag ku bixiyay inay kala qaybsamaan. Aqalka sare oo mar kale la saftay Axmed Madoobe kana hadlay faragelinta dowladda ee doorashada Jubbaland. Madaxweynaha Puntland oo bedelay siyaasadiisa ku wajahneyd Somaliland sidoo kalena qaata go'aan aan la filayn. Iyo dowladda Uganda oo si degdeg ah Soomaaliya uga baxaysa ilaa 2,000 oo askari. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roona. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale go'aano cusub ka soo saartay doorashooyinka Jubbaland xilli ay halkaasi ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan doorasho kasta oo ka dhacda Jubbaland inay tahay waxba kama jiraan sidoo kalena ay baalmarsan tahay dastuurka iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in laba sabab ay ku diidan tahay saxaanshaha doorashooyinka Jubbaland oo mid ay tahay habraaca soo xulista liiska odayaasha dhaqanka oo aan waafaqsaneyn liiska saxda ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan labaad oo ah inaan dariiqa sharciga ah loo marin soo xulista golaha wakiilada Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku baaqday shir dib u heshiisiin oo ay ka qayb galayaan dhammaan dhinacyada Jubbaland si looga fogaado qalalaaso iyo xasilooni darro ka dhacda deegaanada Jubbaland. Qodobada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kala ahaa sida tan: 1. in habraaca loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay inaysan waafaqsaneyn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta. 2. inaan dariiq sharci ah loo marin dhamaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland. 3. in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka iyo habraacyada doorashooyinka in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo saari doonto sharciyo sidoo kalena lagu tilmaami doono waxba kama jiraan. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo sharciga iyo sidoo kale inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka Jubbaland. Sidaa daraaddeed wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaar u tahay inay Jubbaland kala qayb qaadato sidoo kalena ay goobjoog ka noqoto in Jubbaland ay ka soo baxaan doorashooyin wada ogol ah laguna qanacsan yahay oo ay ka qayb qaataan dhammaan musharaxiinta baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale guud ahaan madaxtooyada Jubbaland si loo ilaaliyo daahfurnaan ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxaa ka dhacay dagaal. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhacay dhismaha shir kale oo ah halka loo diyaariyay inuu ka dhaco shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo booliis ah ay weerar ku soo qaadeen ciidamada nabad sugidda ee ilaalada ka ah howlka shir kale oo ah halka uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Dad goobjoogayaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamo booliis ah oo ka carooday in shaqadoodii laga hor istaagay sidoo kalena dad kale loo dhiibay ayaa waxay weerar ku soo qaadeen xarunta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay balse warar aan helnay ayaa sheegaya inuu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada ciidan ee ku dagaalamay halkaasi. Saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug iyo xubno dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta ayaa warbaahinta si kooban ula hadlay waxayna ka hadleen dagaalka kooban ee halkaasi ka dhacay balse ma aysan caddeen faahfaahin rasmina ma aysan ka bixin khasaaraha ka dhashay dagaalka. Isla wararka Galmudug ayaan ku guda jirnaa ee shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee loo balansanaa inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ayaa dib u dhacay. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay shirkaasi dib u dhigtay maadaama dad fara badan oo siyaasiyiin iyo sidoo kale beelo ay wax tabanayaan.
beelaha habargidir ayaa ku kala qaybsamay ka qaybgalka shirka, taas ayaana keentay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dib u dhigto shirka, sidoo kalena ay ka shaqeyso sidii loo heshiisiin lahaa shirka ka hor beelaha wax tabanaya. Sidoo kale beelaha Suruur iyo Duduble ayaa si cad u sheegay inay ka qaybgalayaan shirka, sidoo kalena ay raali ka ahayn beelaha kale ee habargidir go'aanada ay qaateen. siyaasiyiin fara badan ayaa aaminsan in ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu lacag fara badan geeyay magaalada Dhuusamareeb, sidaas darteedna ay ku kala jabeen beelaha habargidir, sidoo kalena ay ku kala qaybsameen. beelaha Sacad iyo sidoo kale Saleebaan ayaa horay u shaaciyay inaysan ka qaybgali doonin shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb inta laga xalinayo cabashadooda. taas beddelkeeda waxay magaalada Hobyo ka bilaabeen shir kale oo ay ugu magac dareen aaya ka talinta beelaha habargidir oo halkaasi lagu soo gabagabeeyay. sidoo kale beesha Saleebaan ayaa aad ugu tabanaysa wax badan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, waxayna sheegayaan inaysan raali ka ahayn inay ka qayb galaan shirka maadaama ra'iisul wasaaraha uu balamo fara badan uga baxay. guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa mar kale la saftay Axmed Madoobe. aqalka sare ayaa hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyo sidoo kale doorashada guddoonka ee ka dhacday magaalada Kismaayo. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare senator Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa sheegay inuu hambalyo u dirayo guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland, sidoo kalena uu ku faraxsan yahay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay xildhibaanada ku doorteen guddoon. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku guuleystay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ee ka dhacday magaalada Kismaayo iyo sidoo kale labadiisa ku-xigeen ee isla magaaladaasi lagu doortay, ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare senator Abshir Buqaari. hambalyada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaamtay habkii loo soo xulay xildhibaanada iyo sidoo kale doorashada guddoonka ee ka dhacday magaalada Kismaayo. xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada Kismaayo, waxayna goobjoog ka noqon doonaan sida ay sheegeen doorashada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa u muuqda inuu si lama filaan ah u bedelay siyaasadiisa ku wajahneyd Somaliland, isagoo ka hadlaya xiisadda ka dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ayaa waxa uu aad ugu dheeraaday sida ay muhiim u tahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada. Deni ayaa ku dhawaaqay in Somaliland ay xoog ku haysato deegaano ka tirsan maamulka Puntland, balse markii ugu horeysay waxa uu xusay in Puntland ay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho maamulka Somaliland si ay u hesho dhulka ka maqan. madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ku baaqay in Somaliland iyaduna ay ogolaato in wada hadal ay la furto Puntland si xal loogu gaaro dagaalada ka socda labada gobol ee Sool iyo Sanaag oo ay dhowr sano ku dagaalamayaan Puntland iyo Somaliland. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu yiri fariinta ugu horeysa waxaan u dirayaa Somaliland, shaatigaaga waa lagugu qabsan karaa dhulka Puntland oo ay ku soo xadgudubtay. wada hadal iyo nabad ayaan doonaynaa inaan ku dhammeeno, haddii ay gar naga yeeshaan waan ka garbaxaynaa, iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay wada hadalka ogolaadaan, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland. hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa u muuqda mid isbedel weyn uu ku sameeyay siyaasadiisa ku wajahneyd Somaliland, maadaama uu maanta ballan qaaday inuu wada hadal la furayo Somaliland si dhulka ka maqan Puntland ay u hesho. madaxdii soo martay Puntland ayaa mar walba sheegi jiray in dhulka ka maqan Puntland uusan gorgortan iyo wada hadal geli doonin, sidoo kalena dagaal lagu soo celinayo, balse madaxweyne Deni ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inuu wada hadal la furayo Somaliland si dhulka ka maqan Puntland loo helo. ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa laba dagaal ku dhex maray deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool kadib markii ciidamada Somaliland ay qabsadeen magaalada 8 Janaayo sanadkii 2018. dagaaladaas waxaa ku geeriyooday 100 askari oo labada dhinac, sidoo kalena waxay ku kala qabsadeen maxaabiis. labadaas dagaal waxaa ku barakacay dad aad u fara badan. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen channelka Gunta Wararka. daawada haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe, qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.